Kusoo dhawaada macluumaad ku saabsan qaaradda labaad ee dunida ugu weyn taasoo la sheego inay tahay meeshii ugu horeysay ee bini'aadamku dego. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkan like star subscribe dheh kanaalka master ka dhiga wehelkaaga la wadaag asxaabtaada si aan ugu soo gudbino muuqaalo dhisaya noloshaada iyo tan bulshadaba. Afrika waa qaarad ka mid ah qaaradaha dunida waxaa ku nool bulsho aad u ballaaran waxa ayna gaarayaan cadadka ku nool 1.1 bilyan taas oo ka dhigaysa in 7 meelood bulshada caalamka meel ay ku nool yihiin qaaradan. Marka xajmiga qaaradaha la fiiriyo waa qaaradda labaad ee dunida ugu weyn marka laga soo tago qaaradda Aasiya oo ah qaaradda dunida ugu weyn. Baaxadda dhulka Afrika waa in ka badan 30 milyan kiiloomitir square. Wadanka ugu dhulka weyn Afrika waa dalka Algeria halka Nigeria tahay wadanka ugu dadka badan qaaradan. Marka laga hadlo dhanka bulshada Afrika waa halka ay ku nool yihiin dhalinyarada ugu badan caalamka boqolkiiba 50 dadka Afrikaanka ah waa da'da 19 sano jirka waxaana la isku raacay in bartamaha iyo bariga Afrika ay tahay meeshii bini'aadamku ka soo bilaabay deegaameysiga amaba taariikhda bini'aadamku ka soo bilaabatay taasoo muujinaysa deegaanada dhaca mandaqadan in laga helay lafa bini'aadam kuwa ugu cimriga dheer siba wadanka Itoobiya. Sidoo kale Afrika waxaa mana dhul baraha waxaana ay leedahay noocyo badan oo cimilo ah. Afrika waxaa loo qeybayaa ilaa 5 gobol ayna kala yihiin bariga Afrika, bartamaha Afrika, galbeedka Afrika, waqooyiga Afrika iyo koonfurta Afrika. Dadka ku nool qaaradan sida ay u badan yihiin waa dad madow ah marka laga reebo waqooyiga Afrika ee ay ku nool yihiin dad Carab ah iyo wadamada qaar oo laga helo dad cadaan ah kuwaas oo uu ka tagay gumeystay wadamada Afrika. Dad badan oo caalamka ah ayaa waxay aaminsan yihiin in bini'aadamku ka imaadeen qaaradda Afrika waxa ay leedahay qaaradan taariikho fara badan waxaana ka mid ah faraaciintii Masaarida iyo waliba is-adoonsigii waqtiga dheer jiray ee Afrikada madow.